مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صلاة قيامك سجود الله مركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبادة برنامجك رمضانك maantana waxaan qaadanaynaa qaybta koowaad waxaana soo jeedinayaa الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون حفظه الله أن سو دبي شيخه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد وعن رجيني إلا عمصه waxaan isku daynaa inaan waxoogaa ka tilmaamno daris ku saabsan ramadaanka iyo soonka iyo nusuusta qur-aanka iyo axaadiista nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ka sugnaatay. alla subxaana wa tacaala wuxuu in badan inugu dhiirigelinayaa markaa inaynu soonno. soonka maxaa la yidhahdaa marka? assawmu lugatan alimsaak. soonka af ahaan waxaa loo yaqaanaa waxa weeyaan waa in la iska dhaafo ama laga joogsado. luqada carbeed waa imsaak, waa ka tegis, ama sharciga dhankiisa marka la eego waa tegis laga tago wax allaaliya wixii keena in la afuro waagu markuu beriyo, yacni salaada subax wakhtiga ay soo gelayso ilaa iyo inta laga gaadhayo maqribka amase cadceeddu ay ka dhacayso. ramadaan in la sooma waxaynu ognahay inay ka mid tahay arkaanta waaweyn ee waajibka islaamku ah, waana kii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi tilmaamayey buniya alislaamu calaa khams. islaamnimadu inay 5 ku salaysan tahay. 5taa waxaa ka mid ahaa uu nebigu sheegay in la soomo bisha ramadaan. idan waa rukni marka la leeyahay waa tiir ka mida tiirarka islaamkuba ku taagan yihi. yacni waa rukni hadduu dumo islaamnimadu aada mooddo inay la dumayso. waxaanu nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cidda ramadaanka afurtaa inay dembi aada u weyn gelayso, oo nebigu ma habeenkii la dheelmiyey ama riyada kuwuu ku soo arkay ee uu sheegayay sifada foosha xunle uu ka sheegay, wuxuu sheegay kuwaas inay ahaayeen kuwa afuro maalinta ramadaan. imaamu dahabi raxmatullaahi calayhi waa ka ku tilmaamanayana muslimiinta agtooda waxaa la isku wada waafaqsan yahay qofku hadduu afuro bil ramadaan in laga shakiyo diintiisaba, oo zandaqa iyo gaalnimoba xataa looga shakiyo buu leeyahy. hadduu isagoo xalaashanaya afurana waa masale uu ku gaaloobi karaba. sida awgeed ee ramadaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha islaamka ugu waaweyn ee arkaantiisa ka mid a. waxaynu in yar isku boorin doonnaa bal fadaa'isha ka soo aroortay ee nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ka sugnaatay ee uu soomka ku sheegay. xaadiista nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qayb ka mid oo kooban ayaan isku dayayaa inaan akhriyo. wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkii xadiidulqudsiga ahay ee ilaahay uu ka warinayey acmaasha kale oo dhan inuu qofku iska leeyey, oo macnaheedu uu yahay in qofka lagu abaal marinayo alxasanatu bicashri amhaaliha. hal xasana ama hal wanaaga markuu sameeyaba 10 laabkeed. soonka mooyaane buu nebigu yidhi ila siyaama fa innahu lii wa ana ajza bih. alle wuxuu leeyahay soonka iyada anaa iska leh, anaana qofka ka abaal marinaya. macnaheedu waxa weeyaan soonku kuma jirto waxyaabihii laysku abaal marinayay halkii xasanaba 10 laabka laysku abaal marinayay. waxaa kale uu nebigu sheegay wa anna sooma laa cidla lah. soonku inaanu wax u dhigmaba jirin. waa kii saxaabigii dagaalka rabay yidhi ilaahay rasuulkiisiyo waan dagaal tegayaa ee inaan dagaal tago oo weliba aan shahiidnimo qaato oo aan ku dhinto iigu ducee. dabeetana nebigu wuxuu yidhi ilaahayow soo nabadgeli oo khaniimo soo sii. haddana mar kaluu nebiga weydiista, nebigu wuxuu yidhi ilaahu soo nabadgeli oo uu khaniimo soo hela. mar saddexaad buu weydiistay. markii dambuu camal weydiiyey bal janno lagu tegayo weyn oo kale haddaba in loo sheego.
wuxuu ku yidhi nebigu soonku wax u dhigmaaba ma jire. walidaalik soonka waxyaabaha waaweyn uu nebigu ku sheegay waxaa ka mid ah inuu qofku markuu sooman yahay ilaahay baryadiisa aanu celin, wa ana dacwatu saa'imi laa turad, xadiidkii bayhaqi baa sheegaya. waxaa kaloo fadaaishu nebigu ku sheegay ka mid ah qofka sooma inuu laba farxadood leeyay, marka uu soonkiisa dhammaystire uu ciidayana inuu farxo, ilaahay maalintuu la kulmay qiyaamahana inuu si gaara u farxi doono. waxaa kaloo nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh soonku maalinta qiyaamaha waxyaabaha shafeeco qaada inuu ka mid yahay, oo intuu isa soo taago inuu odhan doono rabbiyow cunadiisii iyo shahawaadkiisiiba maalin oo dhan baan ka reebay ee aniga daraadday u shafeeco qaad. axaadiista aan akhrinaya dhammaantood waa xasan ama saxiix. waxaa kaloo ka mid ah inuu nebigu sheegay lakhaluufu famu saa'im atyabu cinda allahi min riixi lmisk, qofka sooman riixda afkiisa ka soo baxdaa inay alle subxaana wa tacaala agtiisa kaga udug badan tahay uduga miskiga. waxaa kaloo nebigu uu sheegay soomku inuu junnayay, gaashaan inuu yahay, wa xisnun xasiinun min annaar, iyo qalcad adag, teed adag oo laga gala naarta inuu soomku yahay. waxaa kaloo uu nebigu sheegay qofka maalin sooma, ilaahay dartii u sooma, in ilaahay isaga iyo wejigiisa naarta uu kala fogeeyo 70 dayrood in loo socdo. waxaa kaloo nebigu sheegay qofka maalin sooma ee dabeetana ay tiisii noqoto isagoo sooman geeriyoodee maalintaa dhinta inuu ahlu janno ka mid yihi. man saama yowman ibtigaaa wajhi illaahi khutima lahu bihi dakhala aljanna. qofka maalin sooma isagoo sooman geeriyooda inuu ahlu jannaa ka mid yahay buu nebigu sheegay. waxaa kaloo nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh soonka qofka sooma albaab gaaro oo jannada ka mid ah albaabadeeda 8 in looga yeedhi doono, oo albaabkaasi la yidhaahdo alrayaan, harraatire albaabka la yidhaahdo, oo aanay cid kale ka geli doonin kuwa sooma mooyaane. waxaa soonka ka mid ah oo tilmaamaya fadiiladeeda de inay tahay rukni arkaanulislaamka ka mid ah. waxaa kaloo fadiiladiisa tilmaamaya inuu yahay bishii ilaahay uu u doortay qur-aankiisa inuu soo dejiyo. waxaa kaloo fadiiladiisa ka mida soonka inay habeenuu ku jiro leylatulqadri la yidhaahdo oo 1 bilood ama dhowr iyo 80 sannadood ka khayr badan. waxaa kaloo soonka fadiiladiisa ka mid ah in bisha tan albaabada jannada la furo oo la xidho albaabada naareed, oo shayaadiinta waaweynna la xidhxidho kuwa waaweyn.